musharax madaxweyne Abshir Aadan Feero oo ka hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa aad uga xumaaday jawaabtii ka soo yeertay madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo. qoraal uu soo saaray musharaxa ayaa aad ugu cambaareynayay aadna uga xumaaday warqadii ka soo baxday xafiiska madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo oo si qalad ahna uga jawaabayay hadaladii ra'iisul wasaare Roble. waxaa la yaab leh sida uu u difaacayo danta Fahad Yaasiin iyo dantiisaba. waxaan idin iftiiminayaa hal mar xitaa ma dhicin in uu ka hadlo arinta gabadheena qaranka Ekraan Tahliil dhalinyaradii Eritrea xuquuqda iyo bini'aadanimada lagu tuntay ayuu yiri musharaxa. Soomaaliyay waad u jeedaan nolosheena horumar ma gaarayno anagoonan ka hortagin dhibaatada Farmaajo iyo shaqaalihiisa iyo Fahad Yaasiin ay ka wadaan wadanka gudihiisa. waa in si degdeg ah loo taageeraa ra'iisul wasaare Roble si shaqadiisa qarannimo uu u gudan lahaa. Farmaajo iyo Fahadna waa in si degdeg ah maxkamad loo horkeenaa si ay u dareemaan xanuunka iyo xaqdarada ay nagu wadaan ama ay nagu isticmaalayaan ayuu yiri musharaxa. sidoo kale musharaxa ayaa yiri arinta Ekraan Tahliil ee dhalinyarada Eritrea loo qaaday oo dhan waxaa la murugaysan waalidkooda caruurtooda aanan warkooda heenin. dadka u maleynaya arintan in ay tahay arin siyaasadeed waxaan leenahay ma ahan arintan arin siyaasadeed, waa arin xaqa bini'aadamka lagu leeyahay. waa in aan ilaalinaa xuquuqdooda iyo naftooda, waa waajibna saaran. waa inaan u istaagnaa xaq oo ah shay diini ah inagoo isku duuban. waxaan doonaynaa Soomaali oo dhan jawaab degdeg ah oo sax in aynu ka helno Farmaajo iyo Fahad. aaway gabadheeni qaranka Ekraan Tahliil, aaway injineer Yariso, aaway dadka sida xaqdarada lagu dilay gudibeeneedkii aad magacawday aan weligood aan waxba laga heenin, aaway amnigii dhaqaalihii iyo horumarka dalka ayuu yiri musharax Abshir Feero. waxaad yihiin khayrul mas'uul, wadanka dib baad u dhigteen, maantana waxaad taagan tihiin in aad qabiilada Soomaalida madaxa isku gelisaan. ma intaas bay ahayd awoodiin hogaamineed? Soomaaliyay aan u wada istaagno saan qaranka u dhisan lahayn, caalamkana aan uga muuqan lahayn inaan nahay dad nool oo jira ayuu hadalkiisa ku soo koobay musharax madaxweyne Abshir Aadan Feero. Mukhtaar Cabdi Aadan, Ariel TV, Muqdisho.